madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee Somaliland ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo maanta booqasho ku soo gaaray dalkani Somaliland waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa oo madaxweyne Muuse Biixi ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Saynici wasiirada arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha ee Somaliland Dr. Saad Cali Shire iyo Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed waxaana kulankaasi uu qaatay muddo saacada iyadoo arrimaha lagaga wada hadlayna ay warfadiyeenada la wadaageen wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire oo dhinaca xukuumadda Somaliland u hadlayay waxaana uu sheegay in madaxweynaha iyo ergeyga qaramada midoobay ay ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada dimuqraadiyadda horumarka iyo waxyaabaha ay xukuumadda cusub ka qaban karto shaqo la'aanta madaxweynaha iyo isigii waftigiisuba ay la kulmeen waxaana ka wada hadleen waxyaabo fara badan oo la xiriira shaqada iyo iskaashiga jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo Somaliland waxyaabaha waxa ka mid ah arrimo la xiriira siyaasadda dimuqraadiyadda nabadgelyada dhaqaalaha mucaawinada si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayuu kulankaas ku dhacay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa ka warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. It's a great pleasure for me to be back here in Hargeisa. I'm here to come and meet waxaan ku faraxsanahay mar kale inaan ku soo laabtay Hargeisa. waxaan kulan muhiim ah la yeeshay madaxweynaha Somaliland si aan ugu hambaliyeeyo doorashadiisa isla markaasina aan u fahmo waxyaabaha muhiimadda koobaad uu siinayo about the priorities of the new government, and I was able to congratulate the people of Somaliland through him for the elections last year and to listen to those priorities. madaxweynaha waxaan u sheegay in loo baahan yahay inuu xoogga saaro arrimaha ammaanka ka hortagga abaaraha shaqo abuurka dhalinyarada iyo dabcan arrimaha dhanka siyaasadda ee u baahan in wax laga qabto addressing some of the political issues that are faced. madaxweynaha waxaan ku bogaadiyay khibradda qof ahaan uu leeyahay arrimaha nabadeynta iyo xasilooni ku soo dabaarista oo uu ku hawlanaa tobannaankii sannadood la soo dhaafay. His many decades of personal experience of the importance of finding peaceful solutions to problems. waxaa sidoo kale aan ku booriyay isagoo adeegsanaya khibraddaasi uu leeyahay ee dhanka nabadgelyada inuu ka hortago xasilooni darro kasta isla markaasina uu ka ilaaliyo Somaliland in xasarad iyo dhibaato ay ula tagto dadyowga kale to try and prevent violence of any kind between Somaliland and others. warbaahinta Somaliland ayaa ergeyga qaramada midoobay wax ka weydiisay dagaalkii ka dhacay gobolka Sool waxaanu ku jawaabay our position is to try and reduce tensions to increase dialogue very quickly. mowqifkayagu waxa weeye inaanu hoos u dhigno xiisadda oogan si meel loogu helo wada xaajood dhaxmara labada dhinac waxaanu ugu baaqaynaa dhinacyada haddii ay kala duwanaani jirto waa in wada hadal lagu xalliyo colaadda iyo arrimaha militarigu marnaba ma aha mid xal lagu heli karo military solutions and to violence is not the way to resolve. sidoo kalena waxa wax laga weydiiyay muranka hawada ee u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya waxaana uu ku jawaabay airspace management is in the interests of both of everybody of the world. In fact, airspace cannot be an area of dispute because then it will shut down. marka ay noqoto arrinta maamulka hawada waa arrin guud waxaana jira daneeyayaal gacanta kula jira oo xitaa caalamku ka mid yahay xaqiiqatan hawadu ma aha meel lagu murmi karo waayo haddii kale waa ay xirmaysaa then it will shut down. sidaasi awgeedna aniga waxay ila tahay in loo baahan yahay wada hadal dhaqso ah inay isugu yimaadaan Somaliland Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay ee ICAO si go'aan looga gaaro loona cadeeyo cidda loo dhiibayo maamulka hawada Somaliland ICAO to clarify the basis upon which airspace management will be undertaken over the skies here. waxaa jira arrimo isfaham waa uu ka taagan yahay oo wasiirka amuraha dibadda laftiisuna uu wax iga weydiiyay
oo ku saabsan arrinta hawada waxaanan soo jeedin lahaa in la ixtiraamo heshiisyadii u dhaxeeya Hargeysa iyo Muqdisho lagana wada hadlo wax kasta oo la isku fahmi waayay si loo kala cadeeyo arrimahaasi mana jirto cid ku khasaartay iyo cid guuleysatay midna marka laga hadlayo xaaladani waana qadiyad masiiriya oo cid walba khusaysa. There is no win-lose situation here. It's either win-win or lose-lose. So I hope this is resolved as quickly as possible. Booqashada ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ku yimid Somaliland ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Somaliland. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Hargeysa.